waxa ay noloshiisu ka soo bilaabatay darawal ilaa uu madaxweyne ka noqday mid ka mid ah dalalka ugu kheyraadka badan adduunka. Shakhsiga aynu ka hadlayno waa madaxweynaha dalka Venezuela, Nicolás Maduro. Donald Trump, hands up Venezuela, de inmediati. Te mira. Maduro waxa uu dhashay 23 Noofembar sanadii 1962 isaga oo ku dhashay magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela. Waxa uu ku koray xaafadda Los Jardines oo ahayd xaafadaha ay deganayeen dadka dabaqadda dhexe ee noloshoodu dhexdhexaadka tahay. Aabihiis Maduro Garcia waxa uu ahaa hogaamiye bulsho kaas oo caan ku ahaa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka. Hooyadiis Teresa de Jesus waxa ay ka timiday dalka deriska la ah ee Colombia. Kontomeyadii ayayna nolosha wadaageen labada waalid ee Maduro ee ka soo kala jeeda labada wadan ee Colombia iyo Venezuela. Maduro waxa uu ahaa wiilka kaliya ee 4 carruur ah ee qoyska uu haystay, isaga oo la koray 3 gabdhood oo walaalihiis ahaa. Yaraantiisii Maduro waxa uu ahaa mid aad u jecel muusikada, heesaha dhaqanka iyo dhexgalka bulshada. Waxa uuna aad u bartay tumista ama garaacidda gitaarka, isaga oo gitaarka ka tumi jiray goobaha ay dadku isugu yimaadeen iyo meelaha ay ka jiraan fantasiyaha. Waxa uu Maduro ka tirsanaa rag isugu jira fanaaniin iyo muusishanno, kuwaas oo lagu magacaabi jiray Enigma, kuwaas oo ka soo muuqan jiray munaasabadaha dhaqanka iyo kuwa dalxiiska ee goobaha camiran. Waxa uu Maduro mar walba ku hamin jiray inuu magac weyn ku dhex yeesho bulshada. Sidoo kale waxa uu ahaa ciyaaryahan hiboole ah oo caan ku ahaa ciyaarta baseballka, kaas oo ka gaaray xitaa in loo soo bandhigay fursad uu kaga ciyaaro dalka Mareykanka. Balse halkii uu raaci lahaa riyooyinkaasi, Maduro waxa uu u janjarsaday dhanka dhaqdhaqaaqa bulshada iyo siyaasadda. 12 jirkiisii, Maduro waxa uu ku biiray dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ardayda, isaga oo ka ahaa xubin firfircoon. Kadibna waxa uu ku biiray ururada Ruptura iyo Socialist League, kuwaas oo ahaa ururo iyo kooxo ka jira dalka Venezuela. Ururadan ayaana la oran karaa waxa ay qaabeeyeen fikradda iyo siyaasadda hogaamintiisii. Bartamihii 80meeyadii, Maduro waxa uu u safray magaalada Havana ee dalka Cuba, halkaasi uu wax ku bartay dugsiga sare ee Escuela Superior. Waxa uuna halkaasi ku bartay culuumta la xiriirta siyaasadda, taariikhda iyo dhaqaalaha. Waxa uu sii watay waxbarashadiisa isaga oo sii xoojinaya xiriirka uu la leeyahay mabaadi'da hanti wadaagga iyo dhisidda xiriirada saameyn ku yeelan doona jidkiisa siyaasadeed. Markii uu Maduro ku soo laabtay dalka Venezuela, Maduro ma uusan dhammaynin dugsiga sare, laakiin waxa uu shaqo ka helay nidaamka gaadiidka ee Caracas Metro, isaga oo ahaa darawal bas. Shaqadaani waxa ay udub dhaxaad u noqotay adkaysi iyo waayo aragnimo gaar ah. Sanadkii 1990 waxa uu noqday qabanqaabiyaha ururada dhaqaalaha, isaga oo gacan weyn ka geystay aasaaskii ururka shaqaalaha ee Metro Caracas sanadkii 1993. Sanadkii 1992 markii uu sargaalkii Hugo Chavez uu isku dayay inuu afgembi ku sameeyo dowladdii Venezuela, Maduro waxa uu ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu ololeynayay ee taageerayay. Sidoo kale Maduro waxa uu ka qayb noqday dhaqdhaqaaqii kacaanka ee loo yaqaanay MBR 200 markii Chavez uu u tartamay madaxtinimada sanadkii 1998. Maduro waxa uu ka caawiyay abaabulka taageerada isaga oo u maray xisbiga MVR. Isla sanadkaas, Maduro qudhiisa ayaa loo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka Venezuela, taasi oo bilaaw u ahayd waayihiisa siyaasadeed ee heer qaran. Sanadkii 1999 waxa uu ku biiray golihii dib u qoray dastuurkii Venezuela. Sanadkii 2000 ilaa 2006 waxa uu ka mid ahaa golaha qaranka, isaga oo noqday guddoomiyaha golaha sanadkii 2005 ilaa 2006. Sanadkii 2006 ilaa 2012 madaxweyne Chavez ayaa Maduro u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. Muddadaasi Maduro waxa uu xoojiyay xiriirka wadamada sida Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan, halka uu ka fogaaday xiriirka dalka Mareykanka. Bishii Oktoobar sanadkii 2012 waxaa xaalad caafimaad la soo diristay madaxweynihii dalka Venezuela ee talada hayay, Hugo Chavez, isaga oo la daalaa-dhacayay xanuunka kansarka. Waxa uuna u magacaabay Maduro madaxweyne ku-xigeenka dalka, isaga oo ku sifeeyay inuu ahaa kacaan dhab ah iyo sidoo kale inuu ahaa nin khibrad weyn u leh
siyaasadda dalka. Bishii Maarso sanadkii 2013, Hugo Chavez ayaa geeriyooday. Sida uu dastuurku qabo, madaxweyne Maduro waxa uu noqday madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalka, iyada oo doorasho gaar ah oo la qabtay bishii Abriil sanadkii 2013. Maduro ayaa si dirqi ah kaga guuleystay hogaamiyihii mucaaradka ee Henry Capriles, sidaasina waxa uu darawalkii hore ee baska, muusishankii gitaarka iyo hogaamiyihii ururka shaqaalaha uu ku noqday madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Venezuela. Venezuela waa dal ku yaala waqooyiga Koonfur Ameerika, waana waddan leh kheyraad dabiici ah oo aad u badan, gaar ahaan saliidda cayriin, isaga oo lagu qiyaasay inuu haysto kaydka saliidda ee ugu weyn adduunka. Waxaa lagu qiyaasaa shacabka ku nool dalka Venezuela inay gaarayaan 29 milyan oo qof. Inkastoo uu dalkani qani yahay, haddana Venezuela waxa ay sanadihii ugu dambeysay ku jirtay xaalad dhaqaale xumo oo aad u daran, iyadoo sicir bararku uu gaaray meeshii ugu sarreysay, taasi oo keentay in kumanaan qof oo dalkaasi u dhashay ay isaga tahriibaan. Xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Venezuela waxa uu ahaa mid aad u xumaa tan iyo markii uu talada qabtay Hugo Chavez sanadkii 1999, laakiin xaaladdu waxa ay gaartay meeshii ugu sarreysay bilowgii sanadkan 2026. Madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ayaana bartiisa Truth ku shaaciyay in ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee loo yaqaano Delta Force ay soo qabteen madaxweyne Nicolas Maduro iyo xaaskiisa, loona duuliyay dalka Mareykanka si maxkamadda loogu saaro eedeymo la xiriira ka ganacsiga daroogada iyo dilal qorshaysan. Mareykanka ayaana duqeymo ka geystay bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalo caasimadda Caracas ee dalka Venezuela, iyaga oo sheegay in ay burburiyeen maraakiib iyo goobo loo isticmaalo dhoofinta daroogada iyo sharci darro lagu iibinayay saliidda cayriin. Mareykanka oo dalkan horey u saaray dhowr cunaqabateyn oo kala duwan ayaa maanta gacanta ku haya madaxweynaha dalkaasi, sida la sheegayna waxa uu maxbuus ku yahay mid ka mid ah xabsiyada dalka Mareykanka. Arrintan ayaana lala xiriirinayaa in Venezuela ay xiriir dhow la leedahay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan, taasi oo Mareykanku u arko khatar weyn oo gaabin karta saameynta siyaasadeed ee uu Mareykanku ku leeyahay gobolka. Fadlan daawada haddii aad halkan nala soo gaartay, channelka subscribe dheh oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso badan.